الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دمان كسو دوادا halkani waa Bio Academy. waa baraha aynu ku leenahay Facebook iyo YouTube channel-ka Bio Academy. waxaynu idilanahay mar walba kusoo dhawaada Bio Academy. maanta waa maalin kale iyo maadada physics-ka fasalka 9aad ee dugsiga sare. cashirkeennii hore oo chapter 1 waxa ku soo qaadanay qaybtiisii ugu horeysay ee ahaa Introduction to Physics. maantana du'aalaad insha Allah ta'ala cashirkeena labaad waxaan ku dhameystiri doonaa isla chapter-keena koobaad. chapter-keena koobaad maanta halkan ayaan ku gabagabay doonaa du'aalaad insha Allah ta'ala kadibna waxaan bilaabi doonaa chapter-rada kale insha Allah. cashirkeena maanta qaybaha ugu badan uu ka hadlayo waxa ugu horeeyo application of physics in real life situations. in physics-ka aynu isticmaalno xaaladaha nolosha caadiga ee maalinlaha ah. waxyaabaha maalinlaha aynu isticmaalno iyo physics-ka waxa la xiriira sidoo kale waxa ka hadli doonaa insha Allah ta'ala career opportunities ama fursadaha shaqo ee maadada physics-ka qofka ku takhasuso maada ahaan oo u barta cilmi ahaan waxa takhasus ahaan ama waxa shaqo ahaan u furmi doona du'aalaad insha Allah ta'ala. waxaynu ka hormarayna qaybta hore ee application of physics in real life-ka in physics-ka aynu ku hoga tusaaleyno nolol maalmeedka caadiga ah. physics wuxuu ciyaaraa important role door muhiim ah in daily life nolol maalmeedkeena caadiga ah. physics wuxuu ka ciyaaraa door aad muhiim u ah. tusaale waxaynu soo qaadanaynaa electricity-ga danabka waa qaybaha ugu muhiimsan ee lagu sharxo physics-ka. electricity is not only used to get light kaliya lama isticmaalo inaynu wax ku leerino ama wax ku iftiinsano kaliya uma isticmaalno korontada balse waxaan u isticmaalnaa waxyaabo kale but also provide sidoo kale waxayna siisaa korontada waxa loo yaqaan ama tamarta loo yaqaan tamarta danabka waxayna siisaa mechanical energy tamar mekaanikeed that drives saaso kaxaysa fans marwaxadaha and electric motors iyo motorada qaybahooda kala duwan. physics-ka marka la joogo electricity wuxuu ka yahay qayb aad muhiim u ah ayay ka tahay physics-ka sidaa darteed waxaynu isticmaalnaa nolol maalmeedkan caadiga oo guri kasta waxa laga isticmaalaa maanta koronta laga isticmaalaa. sidoo kale cars baabuurta airplanes diyaaradaha and other means of transport iyo noocyada kale ee gaadiidkuba have shorted waxay noo soo gaabsheen traveling distance fogaanta safarka ayay noo soo gaabsheen. tusaale qofka rabo inuu ka baxo magaalada Muqdisho iyo aad magaalada Hargeysa haddii uu walugeyna dhaho intee bilood ku qaadan kartaa waa waqti aad u badan balse waxaan raacaynaa diyaarad waxay ku tagaysaa ladan hawa saacado wax kale ku tagaysaa 2 saacadood 3 saacadood saacad 40 daqiiqo 50 daqiiqo wax waqti kooban ku tagaysaa. gaari raacaysaa wadada sarraf maxaa waay xilli waqti dhow ku tagaa fudud micnaheedu waxa marka baabuurta iyo diyaaradaha iyo waxyaabaha la midka ah ee gaadiidka la dhaho kulligood waxay noo soo gaabsheen wadadii aynu ku socon lahayn ama qaabkii aan ku tagi lahayn meel ayay noo soo gaabsheen iyagoo noo fududeeyay. ogowne iyaguba waa dhaqangelin physics oo waxay ka tirsan yihiin physics-ka. domestic appliances waxaa loo isticmaalo guryaha sida air conditioners qaboojiyaasha refrigerators frinjeerada iyo vacuum cleaners iyo kuwa loo isticmaalo nadaafadda guryaha oo loo yaqaan hoovers ama hooverada loo yaqaan rooga loo nadiifiyo washing machines iyo qasaaradaha and ovens iyo sidoo kale foornooyinka casriga ah dhammaantoodba are used in homes waxaa laga isticmaalaa guryaha laga isticmaalaa. communications isgaarsiinta sida radios raadiyaasha TVs telefishinada telefoonada iyo dhammaan macallin kuwa guryaha la dhigto iyo kuwa gacanta lagu qaato mobilada loo yaqaanaba kombiyuutarada inta waxa ka soo hadalno guud ahaan waxa waaye application of physics waa dhaqangelin maadada physics-ka. career opportunities in physics fursadaha shaqo ee maadadan physics-ka ogow waxaan ka hadlaynaa waxa qof physics ku takhasusay oo takhasus ka dhigtay ee maahan qof u soo bartay inuu macalinimo ku noqdo waxaan ka hadlaynaa waxa physics inuu ku takhasuso maadada physics. qofkii ku takhasusay maadada physics-ka fursadaha shaqo ee u bannaan waxa kamid ah architect engineering noocyadiisa kala duwan sida architect engineering midka dhismaha civil engineering oo sidoo kale dhismahaasna ah electrical and communication engineering isgaarsiinta iyo waxa loo yaqaan danabka iyo sidoo kale manufacturing oo warshadaha tiknoolajiyada casriga ah iyo sidoo kale dairy and food technology la xiriirta cuntada iyo caanaha. sidoo kale waxa u furan qofkii barta maadadan physics-ka inuu shaqo ka helo information technology ama IT waxa loo yaqaan in laga takhasuso tiknoolajiyada casriga ah sidoo kale human and animal medicine iyo daawooyin loo soo saaro xayawaanada iyo bini'aadamka intaba. dhammaan fursadahan shaqo waxay u bannaan yihiin qofkii barta maadada physics-ka ee maadahan ugu takhasuso. sidoo kale isla chapter-kan qaybtiisa ugu dambaysa waxaan ku qaadanaynaa waxa loo yaqaan Muslim scholars in science culimadii muslimiinta iyo maadada sayniska xiriirka ka dhaxeeyo. sideen ognahay diinta islaamku waa diin xaniif oo Allah subhanahu wa ta'ala ugu talagalay inuu dunidan dadka jooga lagu hago. islaamku marka waa dhiirigeliyaha ugu wanaagsan ee ku dhiirigeliya ummadda muslimiinta inay aqoonta ama wax bartaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkeena subanbo mar walba iyo markaas
waxay ummadda kula dardaarmaan in wax la barto waxaa ka dareemi kartaa aayadda ugu horreysay ama suuradda ugu horreysay qur-aanka soo degato waxay ahayd iqra bismi rabbika alladii khalaq oo ku caddaynaysa in diintaanu ay xabaarsan tahay dhambaal ah in wax la barto dunida aqoon lagu hogaamiyo rasuulka sal ly slam waxaa jira xadiis micnihiisu ahaa oo dhahe udlub ilcilma min almahdi ila luxd cilmiga waxaad raadisaan laga soo bilaabo dhabta ilaa iyo iilka inta laga tago godka lagaa dhigo micnaheedu maahan waa weynaaday oo waxbarasho waa ka weynaaday anytime waxaan rabaa inaad cilmiga raadiso sidoo kale halkan ku qaadanayna du'aala insha Allah taala Islam has its own golden history islaamku wuxuu leeyahay taariikhdiisii dahabiga ahayd almost in every sector of knowledge taasoo la xiriirta qayb kastoo cilmiga ka mid ah the main theological doctrine of Islam diintan islaamka ah caqiida ahaan waxaa bees u ah quraanka oo Allah subhanahu wa ta'ala soo dejiyay asna quraanka gives the utmost emphasis wuxuu inta badan diiradda saaraa ama ummadda muslimiinta ku booriyaa oo emphasis gareeya ama buunbuuniyaa pursuing knowledge in la raadiyo aqoon in la raadiyo oo cilmiga la raadiyo sida hadda soo sheegnay aayad quraan iyo xadiis aan soo qaadanay oo cadeynayo in diinta islaamku ay tahay diin ummadda faraysa in wax la barto Muslim scholars marka culimadii muslimiinta ah from the past waa xilli hore waagi hore waa very much aware waxay aad ugu warqabeen of this instruction given by Allah amarkaas oo Allah subhanahu wa ta'ala siiyay and they were very much captivated waxay aad ugu tartameen marka on that arrinka amarka Allah siiyay aad ugu tartameen marka they developed waxay horumariyeen oo ay soo saareen many ideas fikrado badan and theories iyo aragtiyo kala duwan in the field of knowledge ay ku soo kordhiyeen aqoonta casriga ah waa kan amarka contributions of Muslim scholars muslimiin culimada muslimiinta sayniska waxyaabihii ku soo kordhiyeen ama ay ugu deeqeen Muslim scientists saynisyahanadii muslimiinta ah made physics waxay ka dhigayaan rely on experimentation mid ku dhisan tijaabo and induction iyo sidoo kale wax soo saarid rather than on philosophy marka loo fiiriyo philosophiga speculationka iyo methodska iyo fikrada maxaa filosofiyada iyo waxyaabaha kale marka loo fiiriyo culimada muslimiinta ah physics waxay ka dhigayaan mid ku dhisan tijaabo Muslim physicists yanadii muslimiinta ah studied some waxay wax ka barteen waxa loo yaqaan jabaqda it is origin asal ahaan waxay ka soo jeedo and it is transfer iyo sida uu kala gudubtay intaba they were the first waxay ayaan ku ugu horeeyay to understand the sound kuwa wax ka fahma jabaqda waxa la cod unaffected by the barriers iyo sida ay u saameyso walxaha that cause them sababo jabaqda and that this sound is transfer you ku gudbiyo jabaqda intaba in the air hawada in the form of circular waves inay u gudubto hawada marka la joogo jabaqda si wareeg maxaa la heer wareegyo circular waves waxa loo yaqaan ama heerar wareegan hergoobeedyo inay u gudubto ay jabaqda ku sheegeen Muslim physicists yanadii muslimiinta ahaa waa also the first waxay ahayn kuwii ugu horeeyay to categorize kuwaasoo qaanadeeya ama qaybiya sounds jabaqda u qaybiyo in different types noocyada kala duwan oo sheega xayawaanada jabaqda ku hadlaan nooc ay tahay dadka xayawaan jabaqda ku hadlaan nooc ay tahay oo categories u sameeya ama qaanadeeya Muslim physicists yanadii muslimiinta ahaa oo soo dafaa sidoo kale waxay ku ugu horeeyay to interpret kuwa oo tarjumo the accuracy of echo dhicida dayaanka waxa la jabaq soo laabata as a reflection of the eye ka dhalato reflection of eye celin hawo ay celiso ama hawo ay soo laabato which hits at a high mountain markay ku dhacdo buur dheer or wall ama dabi markay ku dhacdo jabaqda soo laabato hawada ay soo celido kuwii ugu horeeyay ka hadla ayay ahaayeen muslimiintu waa kuwa marka qaar kamid culimada muslimiinta ugu caansanaa ee sayniska ka qayb qaatay some Islamic scholars qaar kamid culimada muslimiinta in science cilmiga sayniska wax badan ku soo kordhiyay waxa kamid ah saynisaanka loo yaqaan Al-Batani made calculations wuxuu sameeyay xalina la xiriira connection with solar system isku xirka kooxadeedka waa naqaanaa sagaalka meere iyo maxaa lahaa waxa loo yaqaan cadceeda ama qoraxda sidoo kale saynisaanka loo yaqaan Al-Batani wuxuu ka hadlay change in season isbedelka ku dhaco xilliyada oo afarta xilliye guuyi xagaa iyo deer iyo jilaal isbedelada ku dhaco ka hadlay eclipse madoobaadida ka hadlay dayax madoobaadka iyo wuxuu ka hadlay qorax madoobaadka waxa loo yaqaan sidoo kale wuxuu ka hadlay loo yaqaan astronomical phenomena daahirooyinka la xiriira cirbixiyaanka ama waxa la xiriira falaga cilmi falaga waxa loo yaqaan iyo inta badan ka hadlay saynisaanka loo yaqaan Al-Batani waana mid kamid ah culimada islaamka ugu weynaa dhanka sayniska Al-Khwarizmi Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi waa nin caan ah oo dhanka iyo maadada xisaabta caan ku ah Al-Khwarizmi made remarkable calculations wuxuu sameeyay xalina cajiiba he was wuxuu ahaa one of the outstanding Muslim scientists mid kamid ah saynisyahanadii
qadiimiga ahaa ay muslimiintu ku tiirsanaayeen ama mid ka mid ah saynisyahanada ugu caansan dunida islaamka. He is considered waxaa loo tixgeliyay inuu yahay the father of algebra, aabaha aljabrada, qayb ka mid ah xisaabta oo loo yaqaan aljabrada. Aabaha ama qofkii soo hindisay ama wax badan ka qoray ama father of algebra, aabaha aljabra ayaa lagu naaneesaa sida maado kastoo qof aaba loogu daro loogu magac daro oo qofka wuxuu ogaarsan asaga waa la sidoo kale saynisyahanada islaamka waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo ibn haytham al-hasan bin haytham al-hasan al-hasan sida ardayda. He was great physicist, wuxuu ahaa fiisigiis aad caan u ah islaamic world dunida islaamka markii la joogo. ninkan wuxuu soo ikhtiraacay ama udaha ka rogay ama horumariyay waxa loo yaqaan laws of reflection, xeerarka noqodka and refraction iyo qalloocsanka. sidoo kale wuxuu dhisay waxa loo yaqaan pinhole camera, nooc ka mid ah kamerada oo loo yaqaan pinhole ayuu dhisay. sidoo kale ninkan wuxuu sharaxaad dheer ka bixiyay habdhaqanada fiisigiisa habdhaqanada isha bini'aadamka ee muuqda. sidoo kale wuxuu sharaxay different parts of the eye, qaybaha kala duwan ee isha. waxaa ugu dambeeyay saynisyahanada aan soo qaadanayna ninka loo yaqaan Abu Rihan al-Biruni, wuxuu ahaa ardaygii Ibn Sina. sidoo kale ninka wuxuu ahaa fiisigisyan, mathematician, astronomer, wuxuu ahaa nin fiisigiska aad ugu xeel dheer, xisaabtan ku xeel dheer, cirbixinnimada ama cilmi falagana aad ugu xeel dheer. ogow waad naqan kartaa sidii nimankan oo kale maadaama tahay ruux muslima Allahiisa aaminsan. haddii aad dadaal la timaado nimankan oo kale waa naqan kartaa. ninkan loo yaqaano البيروني كتاب كيسي عانك لو يقان كتاب القانون المسودي لو يقان وحلو تحقيقين ويا قانون مد النقدي بيس النقدي أما واحد واقع انكلوبيدي النقدي مال حق لقى دون النقدي أصلا ما بيجي مركل الجو مع بحيانا مركل الجو مركل علم الفرق قال هذا كتاب وهو الرئيس اللي سقعته وكتاب كيقولها البيروني. علماء دي هراء إسلامك سيدا سيد دوني دوم مقدين basic laboratory section ka ugu dambeeya ama qaybta ugu dambeeysa ee chapter-kan du'aalaad insha Allah ta'ala xikada sax loo yaqaan laboratory ama shaybaarka iyo safety rule-ka sida la isku badbaadiyo. sideen ognahay shaybaarka inta badan wadankeena hadda lagama helo shaybaar wax lagu tijaabiyo, balse laboratory waxa la facility that provides waa fududeyn dadka maxaa taas dadka siinaysa controlled conditions, xaalado hubsan inuu taasoo lagu sameeyo scientific or technological research, baaritaan technology ama baaritaan cilmiyeed lagu sameeyo, experiments tijaabooyin lagu sameeyo. sidoo kalena and measurements cabiraadaha ama waxyaabaha cusubne performance lagu qaabeeyo. waa meel lagu qaabeeyo waxyaabaha cusub, research lagu sameeyo oo technology cusub lagu baaro. sidoo kale research cilmiyeedna lagu sameeyo. laboratory ama qolka lagu talagalay laboratory room loo yaqaan needs wuxuu u baahan yahay the following components walxaha ugu koobaya. intaan hadii la helo qol laboratory uu diyaarsan yahay markaas, laakiin intaan waa in la helaa koob waa in la helaa electrical energy, tamar danabeed waa in la helaa. sidoo kale waa in la helaa water and gas piping systems, in la helaa dhuumo hawo iyo kuwo biyo. sidoo kale waa in la helaa workbenches position lagu shaqeeyo waa in la helaa. sidoo kale waa in la helaa cabinets, qaanado ay ku xareysan yihiin ama lagu keediyo qalabka iyo chemicals ka isticmaalo waa in la helaa. intaas qolkii laga helo loo yaqaan laboratory room loo yaqaan. the laboratory wuxuu leeyahay marka hazards ama khatar uu leeyahay. khataraha uu leeyahay some of chemical and equipment are particularly dangerous. walxaha qaar ama chemicalada qaar waxay leeyihiin halis gaar ah ayay leeyihiin. tusaale waa lagu samoobi karaa poisonous, waxa dhici karto in lagu samoobo walxahaas. sidoo kale waxa dhici karto flammable material inay yihiin walxa dhaqso guba karo. maadaama walxa dhaqso guba kara yihiin waxay u baahan yihiin marka safety ama control aad u badan, khatarna way leeyihiin. sidoo kale waxaa suuragal inay yihiin explosive materials, walxa sameeya qarax sameeya inay yihiin. waxaa laga yaabaa marka nafta bini'aadamka ama jirka bini'aadamka qaybo ka mid ah inay saameeyaan maadaama yihiin walxa halisa oo lagu samoobi karo, qaarkoodna dhaqso guba karo oo adigu gubi karo, qofka bini'aadam gubi karo. sidoo kale qaarkood qarax sameeya karo. si marka to avoid the above mentioned dangers, khatarahan kor aan kusoo sheegnay si looga fogaado, we must follow the laboratory rules. waa inaan raacnaa xeerarka shaybaarka u degan. we must wear approved safety goggles. waa inaan xiranaa waxyaabihii loogu talagalay ama dareeskii loogu talagalay in la isticmaalo oo kiyayaasha loogu talagalay waa inaan xiranaa. we must wear cotton coats and gloves. waa inaan xiranaa dharka suufka ka samaysan iyo gloves waa inaan xiranaa. we must wear closed shoes. kaba xiran waa inaan xiranaa shorts and sandals. kabaha furan iyo qaybahooda kala duwan sida dacasa iyo sandalado kaleba must never be worn in the laboratory. waa inaan marnaba lagu soo galin shaybaarka, inaan lagu soo galin. chapter-keena koowaad ee maadada fiisigiska galaaska 9aad halkaas ayuu ku dhan yahay. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen oo wax badan ka kororsateen insha Allah ta'ala. waynu sii wadi doonaa idinkana dadaalka sii wada.
cashirkan subscribe garay si uu gaaro dhammaan ardayda Soomaaliyeed oo ay uga faa'iideystaan aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.